هلو هلو السلام عليكم. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. waxaan arkayaa akhyaar soo gelaysa igu caawiya hadduu codku aanu inagu fillayn iyo haddii kale sawirka hadduu muuqday iyo xaaladiisa intaaba igu caawiya si aan mataqaana uga howlgalno. okay sidaasaan u dhignaa miya sikriyo saa haddaan u dhigno waxaan ku tiirnaan u baahanaynaa foonkan soo dhig. okay ka waran hadda sikriyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ragga khubarada ku ah arrimaha life-ku ha igu caawiyaan haddii wax khaldan yihiin laanno kuma badnin life-ka aadna uma isticmaalo. waad isoo dhaweynayaa waxaan gudoomiye cabdiqani xasan waan arkayaa sikriye kale ahla soo dhawaada faysal xamse cabdi gebigii soo dhawaada. ballantu waxay noo ahayd inaan labadiiba bira bilowno. waxaa keliya taan malaha hawlaheenoo dhanba cudurdaarba ku bilaabmaane waxaan ka cudur daaranayaa waxoogaa baska la yar habsaamay waan ka maqnaa xafiiska intii hore iminkan ayaan imiday marka intaan furfurayay iyo intaan mataqaanaa wax yara kala habeynayay waqti bay naga qaadatay. codku hadduu kaleer yahay sawirkuna kaleer yahay waan iska bilaaban karnaa. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa jirtay maalin dhaweyd gudoomiye cabdiqani xasan ustaadka ayaa soo bandhigay fikrad ah in madasha buugta oo ah gruubyada ugu ballaaran gruubyadan ku jira anigu si aan u odhan gruubyada Soomaaliyeed oo dhowr iyo 60 kun oo qof ku jiraan oo ah xarunta isku keentay buug jacaylka Soomaaliyeed oo dhan in lagu sameyn karo markii hore hadii lagu wadaagi jiray buugta oo mataqaana linkiyada iyo PDF kale isku soo upload gareyn jiray in lagu wadaagay buugta laftarkeeda la falanqeeyo marka live-na lagu falanqeyn karo qoraalka hadalka ka fudud Soomaaliduna way hadal jeceshahay marka in hadal lagu falanqeeyo ayaa macallinkayga Cabdiraxmaan baan arkayaa Cabdiraxmaan Daahir macallin soo dhawow Ustaad Baasha Maxamed Axmed Baari gebigiin soo dhawaada. marka أنا waxaan isku dayay book halkan ku hayo oo la yiraahdo nuskhadiisa aan hayeenka gacanta ku jirta ay tahay copy tarjumad cusub oo af Carabeed oo mataqaana George Arwayl leeyahay masraat xayawaanat reera ayaan halkan ku hayaan rabay inaan wadaagno buuga iyo hadalkiisa ka oranayno waxaan u qaybin doonaa saddex hormo ama saddex qaybood ama saddex mataqaana muxawar mid waxa weeyaan buuga iyo qoraaga midna waxa weeyaan mataqaana sababta buugan inaga Soomaali ahaan dad ahaan dhan uu yahay midda saddexaadna waxa weeyaan nuxurka iyo mataqaana fikradda aynu rabno inaynu buuga ka sheegno aynu ka soo gudbino. marka waxaan ku bilaabayaa horta waxyaabaha waxa jira macluumaad aan rabo fikrad aan rabo macluumaad ma aha fikrad aan rabo inaan ka horeysiin ana saddexda muxawar aan bilaabin oo ah buugta marka la bandhigayo ama la falanqeynayo fikradda buug bandhigitaanka ama fikradda buug falanqeyntu hadafkeedu ma aha hadan u dhiga hadalka sidoo saaxiibkay Muxtaar Xasan Meedan u dhigay ma aha in la iska dul qaado mas'uuliyadda akhriska buuga macnaha qofka soo bandhigaya ama qofka falanqeynaya ama qofka akhriyaya ma aha hadafku inuu ka dul qaado mas'uuliyaddii ka saarneed inaad akhridaan akhrido buuga codka soo kiimaha codka wala maqlayan filaya hadda wax khaldamaan mataqaana ila socodsiye cabsi waa iga yar haysa xagga codka marka fikraddu ma aha in buuga laga dul qaado mataqaana shaqadii ku taalahay in buuga adigu akhriso oo aad la falgasho in laga dul qaado maaha
لانه اصلا qof kasta oo buuga soo akhriyay ama qof kasta oo buuga soo mataqaana daalacday ama qof kasta oo buuga soo bandhiga wuxuu adeegsan doonaa sidoo isagu fahmay ama wuxuu sheegi doonaa oo soo gudbin doonaa sidoo isagu fahmay sidoo isagu mataqaana ee sheeg maxaan ku raahdaa ula falgalay qof walba indhihiisu wax ku akhriya garaadkiisa wax ku fahmaa marka fikradda koowaad ee aan meesha ku bilaabay mowduuca ka baxsan waxa weeyaan buug bandhigitaanka iyo buug falanqaynta iyo mataqaana buug wadaagiddu ma aha marnaba inay naga dulqaado mas'uuliyadda akhriska waxba hadalka dheerayn maayo fikradda haddaan halkaa ku dhaafo waxaan jecelahay inuu gudbino xorkaan maanta iskugu nimidnay buuggan aynu gacanta ku hayno uu qoray George Orwell oo buugda joogay imika mataqaana waqti weyn jira macnaha cimri jira sidoo kalena buug aad caan u ah aadna u yar oo xajmigiisa nadarkaysan mooyaan wax yar weeyaan xashada yar oo mataqaana 144 page ayuu yahay aad u yar yahay aad u kooban yahay buuggan idin uma baahnidin baan malayn idin la wadaago macluumaadka Wikipedia ee qoraaga iyo taariikhda dhashay xagu ku dhashay waxyaabahaas iyo macluumaadka buugga Wikipedia waa meel walba laga heli karaa oo Google code gelisa ayaa inaga xiga laakiin waxaan muhiim ah qoraaga buugga oo ah George Orwell oo ah saxafi Ingiriis ah oo mataqaana 60meeyadii adduunka ka tagay hadaan mataqaana xasuusto aanay mataqaana aanay ugu liidan waxa uu buuggan waxa Orwell waxa weeyaan qoraa shakafaneedyada waxaynu Soomaaliya u naqaanaa ama riwaayaadka ama noveliska qoraa laakiin ka duwan dadka novelada qora uu kaga duwan ahmiyadiisu ay tahay ama waxaynu tahay inaan u xulano oo George Orwell u raacno ama u akhrino ama in danayna ay tahay inuu kaga duwan yahay dadka kale ee sheekooyinka qora laba arrin oo muhiim ah wax ka qora ama aniga labada arrin oo wax ka qora ugu muhiimsan waxay la tahay arrimaha kale oo qoro ka horeysa inuu koow horta yahay qora arrimaha waaqiciga wax ka qora macnaha khiyaalka laftirkiisa sheekadu waa khiyaal waa fiction laakiin khiyaalka laftirkiisa wax ka qoraayo uu adeegsanayo khiyaal waaqici macnaha khiyaal aan oran karno waaqici macnaha inuu waxa fiction ka isagu sawiraayo uu adeegsaday inuu ku macaalijiyo ama ku daweeyo ama ku dhayo ama ku faqo bogo mujtamaca ka jira macnaha ma aha kaliya khiyaal fantaasiya oo mataqaana dhaafsan xuduudda aadamaha oo hadafkuna yahay entertainment mutaco raaxaysi mataqaana ama aqliga loo mataqaana raaxeeyo hal mataqaana loo madadaaliyo ama ruuxda ama mataqaana qofka fikradda George Orwell ku jecelahay aad ka ugu mataqaana ugu burinay dadku inay ku raacaan ama ay ku doontaan wuxuu qoray waxa weeyaan inuu khiyaalkiisu khiyaal waaqici weeyaan arrimaha iskaaliyaadka mujtamaca ka jira inuu si khiyaaliyo qoro marka buuggan oo kooban iyo buug kale oo aad loo jecel yahay oo aad caan u jiro wuxuu leeyahay 1984 leeyahay isaguna riwaayada taariikhdaasi magaciisu yahay marka George Orwell waxa weeyaan qoraa fanka ama sheeko faneed qora laakiin arrimaha waaqiciga mujtamaca waliba siyaasadda wax ka qora shayga labaadna ee buuggan aan ka oranayna waxa weeyaan markaan qoraaga inta ku dhaafno dantaan u leenahay in qoraaga u akhrina wuxuu ahmiyad u leeyahay buuggan wuxuu ahmiyad u leeyahay horta koow marka laga yimaado inuu buug kooban iyo buug yar iyo buug arrimaha siyaasadda ka leeyahay waxa weeyaan buug fikradiisa asaasiga ay insaanka halis ku tahay ama insaanka cabsi ku hayso inuu insaanku halkan waxa ku dul qoran oo mataqaan hal hays loo turjumaagu soo qaatay عندما يتساوى الإنسان مع الحيوان في السلوك markuu insaanku xawayaanka kala mid noqdo mataqaana dhaqanka marka inuu insaanka lagu tilmaamo xayawaani ama insaanka nolol xawayaannimo nool yahay lagu tilmaamo waa fikrad insaanka ku haysa halis ku haysa oo cabsi ku haysa oo dhib ku haysa mar walba insaanku jecel yahay xawayaanka iskil weynaado marka fikradda koowaad buug waxa weeye inuu insaanka ku sharxayo inuu yahay dhaqan xayawaaniya inuu yeelan karo ama insaanka sharxayo isagoo soo dhaxmaraya xawayaanka oo xawayaanka uu soo dhaxmaraya sharxaadda insaanka buuga macluumaadkiisa kale horta buuga Soomaaliya loo turjumay sidoo Ustaad Cabdiqani Xasan shalay ila wadaagna dib baa loo daabacay turjumaadaas mar hore ahayd oo mataqaana waqti jirtay qaahira waqti hore lagu daabacay oo Soomaaliya uu turjuman yahay macnaha waa lagu heli karaa Soomaali inkastoo aan arag indhow waxa mar hadii dib loo daabacay waxa weeyaan hadii beedankeeda leeyahay mar hadii dib loo daabacay waa la heli karaa la akhri karaa ama PDF ama qoraal caadi
waxa dheedkii la turjumay baan rabay inaan ka akhriyo laakiin ima muuqdo kaliya waxa ay muuqdo on sawirka laftigiisu aad buu ugu yaryahay magaca kama akhri karo marka igara leehada buugan Soomaaliya uu turjumay Carabiga uu turjumay taasoo boqol luqadood kale uu turjumay turjumaanka buugan turjumayna aslan wuxuu turjumay waa dabcadiisii koowaad waxa nusxadan aan hayo 2013 af Carabiga loo gudbiyay ama loo hatabiyay ninka tabiyana muqadimada wuxuu kaga cabanayaa waxyaabo badan oo turjumadihii ka horeeyay isaga ceeb ku ahaa ama ay ku liiteen ama ay ku hooseeyeen ayuu rabaa inuu halkan ku saxo oo rabaa inuu halkan ku saxo wana buug mataqaan aad u kooban macluumaadka hadaynu kaga baxno Wikipedia noqon kara halkaasi waxaan rabaa inaan ku xijisiyo mataqaan hadii beedanka leeyahay maxay naga dan inoogu tahay dad ahaan markaynu Soomaali nahay in iska hadlayno inaan buug cayn kana darsino ama buug cayn kana akhrino ama buug cayn kana in wadaagno marka koobaad mataqaan hadii beedankeeda leeyahay buugan yaan waxaan u doortay inaan la wadaaga akhyaartooda buugta kale inuu akhrino uga soo xushay waxa weeyaan buugan wuxuu macaalajeenay qadiyad inaga dhib inagu haysa qadiyad inaga hawl weyn inagu qadiyad inaga inagu mataqaana inagu rafaaday oo ah arinta talada iyo awoodda powerka iyo mataqaana authority-ga marka hadaan mar rabo inaan sheekada mataqaana ku tunto laakiin hadaan shaqo sheekada dul maro waxa weeyaan xawayaano nin Ingiriisi leeyahay oo mataqaana beeru ku dhaqdo oo ku kacdoon ku sameynaya ninkaasi kacdoonka markay ku sameeyaan eriyay isagii shaqaalihiisa ka adkaanayo ka saaray beerta deetiyagu beertii maamulaya marka walaba xaaladood xaalada ay dagaalka kula jiraan kacaanka ku jiraan insaanka eriyanayaan aadamaha eriyanayaan oo ah xaalada ay midaysan yihiin ay wada socdaan ay isku fikirka yihiin ay ideolojiyadu ka dhaxayso ee xulumka lagu wada jiro iyo xaalada mataqaana ay kacaanku guuleysto hadii beedankeeda leeyahay kacaanku markuu guuleysto la dhisayo mataqaana beertii lagu riyoonay loo sinaa ee quruxda badneed ee jannada ahayd loo la dhisayo marka kow saanu nidhi wuxuu macaalajeenay qadiyada suldada authority-ga iyo qadiyada mataqaana talada ama qadiyada powerka oo labadaas weeniga mushkiladuna waxa kale oo macaalajeenaya dinamaakiyada nolosha si noloshu isku la socoto macnaha wuxuu aad uga horjeedaa fikrad aad inoogu badan Soomaali ahaan oo ah ama aad u daweynaya fikrad aad inoogu badan Soomaali ahaan oo ay arrimo iska dhacaan in wax iska noqdaan in iska hagaagto way iska hagaagi waa inagu isticmaal ereygaasi waxa weeyaan erey aad u liito in iska hagaagi way iska bogsani way iska horumari way iska mataqaana iskadaasi baa mataqaana ayuu aad uga horjeedaa oo wuxuu buuga dhaxdiisa ku sheegaya sida ay mataqaana noloshu saameyn isku leedahay inaad go'aan gaadho ama inaad fikrad aaminto ama inaad tala gaadho ama inaad hawl aad abaabusha inay mataqaana ay hadii beedinkeeda leeyahay nolosha gabigeeda saameyn ku leedahay isbedelku inuu yahay sabab ku imaado sababna ku dhaco sababna ku dhamaado ayuu ka duulaya fikrada kale ee muhiimka ah ee mataqaana aynu sheegi karnaa waxa weeyaan sida ay dawladnimadu u dhisanto mujtamacaadku u dhismaan sida mujtamacaadku u koraan sida mujtamacaadku u mataqaana oo isku mataqaana dhaxgalaan sida mujtamacaadku ay u dhistaan qiyamkooda afkaartooda mabaadi'dooda akhlaaqiyadkooda maxaan ku raahdaa waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxay necab yihiin waxay doonayaan ay u dhistaan buu si tafaasiil u sheegaya marka danteedu ma ahayna sheekada akhriyo laakiin danteedu waxa weeyna fikrada u adeegsado waaqiciina oo ah mucdalada ama hawsha jabka inaga weynayna haysta waxa weeyaan in siyaasadda ama arrimaha danta guud ama waxa weyn mataqaana waxa bulshada ay tahay fadhi ku dirir iyo ma laablakac iyo mataqaana maantan tala gaaray برينو فلنا سان دونا كمان دلنا معناها نفس ملها ما نفق هذا كرا أصلاً وين ما أنت قاعد برينا نتيجة دي أركو مركب فكرة الله فكرة مهم كي كلام بقول لسه واحد وين يروحوا خرمان أو يسارمان أو تراكم يهين أو يصوم متقنا واحد بقول لي هاي ماله قبل ما إلا أي ماله كا متقنا وكوجارو أسباب وكوجارو موضوع يعني وليه معناها عن دعاء يو متقنا يهبار يو متقنا وحيابي متقنا معجزين كهاني وحكود عن وحكود عن وحيابه السببية وحيابه
la taaban karo waxaad samaysay nidaam siyaasi ah dhistay nidaamka siyaasiga dhistay haddaanu ahayn nidaam siyaasi oo u nolosha maanta daweynaya inuu fashilmaya wax lagama maarmaana oo taariikh mataqaana aad ku qasban tahay ma aha inay cidi ku xaasido ama cidi ka soo horjeedo ama cadow leedahay fikradda kale ee muhiimka buugu dhisay waxa weeyaan inuu tafaasiisha buuga xagga dambe kaga imanaya xabad xabad wuxuu ku dhamaanayaa buug sheekadu soo ku bilaabantay waxa weeyaan kacaan xornimo doona waxaanay ku gabagabootay hadduu beedamkeeda leeyahay waxay ku gabagabootay kilitalisnimo mataqaana istibdaad bay ku gabagabootay marka xagga dambe istibdaadka ka soo bilaabna kilitalisnimadu waa xaalad dabiiciya marka laga tago wada tashiga ama nidaamka shuuriga ama nidaamka dimuqraadiga markaan la qaanuuneyn mataqaana شو قلت يا عدنان يقرأ له هذا وحوالي تلمامين مالينا يا عدنان قال جميل وحويا عدنان خبرته وين بوليه عدنان اسماعيل حرسي خبرته وين بوليه هاي شيء فيسبوك لايف ka marka waa ka faa'iideysanayna casharadaas aad noo sheegtay marka haddaan sii wado fikradda waday waxay ahayd inuu dictatornimada ama kilitalisnimadu waxa weeyaan nidaam mawduuci ah oo haddii wada tashiga dimuqraadiyadda iyo talada guud iyo wadaaga iyo talwadaaga iyo talaberiska la dastuuriyin waayo macnaha dastuur loo dhig waayo oo la qaanuunin waayo xeer la gelin waayo oo awoodda si cid ilaalisa loo sameyn waayo in lagu dambeynayo kilitalisnimo xawayaanadii kasoo kacdoomay gumeysiga insaanku waxay ku dambeeyeen inuu Napoleon oo ah khasiiriga kamid oo ay madax u doorteen inuu iyaga gumeysto marka dambana isku ekeysiye gabagabadaba inuu insaan labaad noqdo Jones marka sheekadu dhamaanayso Jones ninkii la oran jiray haysan jiray oo kalaba u noqdo sida uu la dhaqmayo fikradda kale ee meesha ku jirta waxa weeyaan muhiimka George Orwell ku xisaabtamaya inuu ama uu hoosta ka xariiqay aad ku weyn waxa weeyaan labada hogaamiye ee kacaanka waday mataqaana khanasiirta ahaa ee midkood madaxda noqday midkoodna mucaaradka noqday ka madaxda noqday ee dictatorka ahaa ka mucaaradka wuxuu isticmaalayay ilaa inta qisadu socoto dhan wuxuu isticmaalayaa inuu yahay wax dadka laga cabsiyo taabu halkan uu joogay isagana soo weeraray fashal kasta oo dhaca midna waxay dhisayeen aalad weyn oo daaxunada oo cuntada lagu habeeyo cuntada ay sameeyaan mar dabeel baa ka dumisa okay mar waxa ka dumiya mataqaana mar dabeel baa ka dumisa waxa la yiraahdaa ninkii naga midka ahaa ee khaayinka ahaa ee naga baxsaday ee naga baxay ee leeriyay ayaa xalay soo galay oo dumiyay marka fikraddu waxa weeyaan inuu nidaam kasto dictator wuxuu u baahan yahay buuc dadka kaga cabsiyo iyo buuc dadka dadweynaha fashilkiisa kala laadiyo mesela aanu hargeysa joogaa Soomaaliland baan nahay Soomaaliland hadii fashal kasta dhaco wax kasta haduu xumaado marka waxa la soo hor joogaa waxa weeyaan i'tiraaf ma haysano macnaha i'tiraafku wuxuu u yahay nidaamka Soomaaliland buuca fashal kasta lagu caliqo lagu mataqaana lagu sababeeyo laga gabado Soomaaliya kale nin kasto fashilma ama nidaam kasto siyaasi oo fashilma markaasba awood dibadda ayuu eedaya dowladda gobolka namo gala Ethiopia shirqool noo sameysay Uganda kan sameysay macnaha hatta hadii jiro ina cid ka soo horjeeda jirto oo ku eriyanaysa mar walba ma aha hadana adigu u jabin inay ku fashilinayso marka fikradda kale aan rabo in halka ka xariiqana waxa nidaam kastaaba mataqaana oo saay Soomaaliya qortay shamaa li kulli khata ama mataqaana lagu oranayo cid dibadda aan riday ama lagu oranayo i'tiraaf ma haysano ama marka ninka Napoleon ee khasiirka ahaa masraacada xawayaanka beerta xawayaanka ka noqday madaxdu waxa uu buuxay soo dadka kaga cabsin jiray saaxiibkii khasiir kale oo talada wada hayeen oo meesha ka dhacay oo إيجار هلا هذا إنتر خدكم صفة عن مو مقدار صوركم قف حمزة عبد العالي وحشي يعني وإنترنت كأدو ليتو أون الأركين ما لو الأركين مسوى حوالي صور كليتا
اوكي ما تنادي قدومي عبد الغني baa inoo fadwooday yiri internetka okay waan iska wadi karnaa marka waxa loo baahay marka nidaam kasto siyaasi oo faashila ama aan qorshe lahayn ama nidaam lahayn wuxuu baahay buuc dadka ka cabsiyo oo wax ku caliqo waxa uu noqday ninka saaxiibkii khansiirka kala aha oo markasta xal isaga la joogay hebel isaga dilay hebel isaga ma taqaana dhaawacay maxay isaga xaday daxunadii isaga inaga dumiyay isaga ma taqaana haduu idankeeda leeyahay nin oday rabeen inuu soo biiro oo live kana gula soo biro waxaan wixii su'aalaayeen niqaash iyo ka daba tag iyo su'aal iyo fasiraadba xaga dambe inuu kaga darsanayna ka walolina waqti waan haysanaa aan sii wado fikradda mucaaradku inay jirtaa calaaqadaas fikrad kale oo waxa jirta inuu nidaam kasto oo siyaasi oo dictator u baahan yahay buuq gulwadeen waxaan inagu niraahno dad صح يا خالد با usacbatuma صح يا خالد ba u keena sababayn iyo tafsiir iyo hagaajin oo meeshii shalay la diidanaana iyagu sababayn laha waxa lagu diiday uu sheegay meesha bari la raacayna ama maanta la raacayna oo oranaya geesinimo ku timaamay shalayna hal adayg maantana ma taqaana xirfad siyaasadeed iyo bisay siyaasadeed su'aalo waxa jira beero la daris ah oo dad bashari leeyihiin basharkaas waxa ka xanaaqeen inay xawayaanka inta basharkii ku kacdoomeen ay eriyadeen dabaalintaas saabatunka intay basharkii eriyadeen ka xanaaqeen inta basharkii la eriyadeen beertii ay maamulanayaan taqaana aduu ay beenkeeda xawayaanku maamulanayaan marka basharka iyo xawayaanku isnaceen dariska ay beeraha dariska aad baa la isku nacba marka maxaa iimaneysay ninkan Napoleon khasiirka maamulo beertu maalinba ka basharka uu la heshiiyay ma aha ka kale ayuu u jeedinayay dadku lahaa hebel baa ayaa cadawgeena la saaxiibay hebel baa halis inagu ah hebel baa inagu soo duulay dagaal bay inagu soo qaadayaan ciidanka hogaaya safka gala difaaca gala inaga ma taqaana inaga geejiya yaan layna soo jabinin yaan layna eriyinin ma taqaana macnaha dadka markuu saayra dad baa jira kamida ma taqaana xawayaanka oo markii dambe masib bay yeesho nin diig u qabtay waxa kamid waxa shaqadoodu tahay maalin kasta inay fikradaasi ama go'aanka la gaaray ay ka dhigaan halkii ugu sareysay xikmadda siyaasadeed halkii ugu sareysay bisaylka siyaasadeed dan aan laga maarmi karin waxyaabo noocaas marka taa laga guure ma taqaana dhanka kale loo guurana waxay noqonaysaa tii shalay beertii shalay la culuubay la heshiyo shalay waynu khaldanayn macluumaad khalad aynu soo gaaray maanta aan hubsanay warku wuxuu sheegayaa inuu ninka kale dhakan inaga xigaa oo halis inagu yahay ninka dhakan inaga xigaa inuu halis inagu hayn iclaam muwajjah marka fikradda kale taliska u baahan yahay ugu muhiimsan ee aanu ka maarmin ee laf dhabarta waxa weeyaan fikradda awoodiisa dhista talada awoodiisa dhista ama factorka awoodiisa dhisa ee ama la'aantii uu burburaya ama la'aantii uu jirayo waxa weeyaan ciidan awood leh oo aan mabda lahayn ninka Napoleon markii talada la wada lahaa ee la tashan jiray ee shuurada la haystay ee dimuqraadiyadda la haystay ee wax kasta si siman loo qaybsanayay ee beertu kacaanku guuleystay wuxuu gooni u qaaday sagaal ay oo yaryar oo ay dhashay gooni u koriyay marka wuxuu ku sababeeyay inuu rabo inuu jiilka dambe isagu wax baro oo jiilka dambe soo saaro oo jiil dambe u diyaariyo beerta xawayaanka anagu hadaa weynaanay oon dhimanayno ayadii lagu mataqaana lagu aaminay ayuu isagu shakhsiyadiisa iyo hogaamintiisa ku ababiyay maalinkii la iskhilaafay hadii beedamkeeda leeyahay isaga iyo ay noqotay isaga oo dhinaca iyo beerta xawayaanka intii kale oo dhinaca oo mataqaana lagu kala qaybsan laba qaybood la kala noqday aydaas oo meel ali meel ku maqnaan la ogayn buu soo daayay uu ku sii daayay cid kasta ku mucaarada ilaa maalintii ugu dambeysayna taladiisa ilaalinaysa qof kasta oo ka soo horjeeda dilaysay eriyaneysay cunaysay ma taqaana cabsiinaysay ciidan bay wahayd marka nidaam kasta oo kali talisa ama dictator kama maarmo adawaat alqamc waxa la yiraahdo waxyaabaha wax lagu karbaasho bilayska siyaasiga sirdoonka wuxuu beedamkeeda leeyahay waxyaabahaasi dadka lagu awood sheegta kama maarmin nidaam kasto kiltalisa aadna si fiican uga muuqata sheekada waxyaabaha kale muhiimka ah meesha ku jira waxa kamid ah in fikradda ugu weyn ee ma taqaana مثل فرق الموت oo kale dadku ma taqaana loo adeegsado ikhtiyaaraadka ama toogashooyinka qorsheysan marka khadar aadam ahlan sahlan marka kama maarmo hadii beedamkeeda leeyahay awooddaasi rasmiga ee kala saarta yaa xagga ku jira oo la socda kilitariska yaa ka soo horjeedo la dilaa iyo yaa aamuso cabsooda dadka badankooduna waxay u badin dadka aamuso ee cabsooda
dadka danta la sida kuwan dadka laynaya sida kuwan mataqaanaa warbaahinta mar walba wax walba waa u saacabatumay guladayaasha sida kuwa siyaasiyiinta ka danta la ee sida gacan yarihiis oo kale diiga mataqaanaa buuqa oo kale waxa soo dhani wadan la yaal waxa raacayaan kilitariska laakiin dadka badankoodu waxay ku harayaan marxalad dhexe oo ah mataqaanaa muxuu ahaa kacabsiiska ama kama hortegi karno nin walba naftiisu u baqaya noloshiisa ubadkiisa reerkiisa danihiisa ayuu baqaya taasaana keenta jooyigaasaana keena inuu kilitirisku waaro mataqaanaa una dhicin fikradda kale muhiimka rabeen hoos ka xariiqay meesha ku jirta waxa weeye shacabka waxa mar walba ku jira qolo shaqo diyaar u ah qalbi daacada mataqaanaa aan hoggaan waxba ka rabin siyaasad aanay ku jirin laakiin marka cuqdada laga buuxiyo ama cid lagu wajaho ama cid laga horgeeyo iyagoo mataqaanaa wadaniyada ay ka tahay ama daacad ay ka tahay ama wanaag ay ka tahay ama waxqabad ay ka tahay dadkoogiya dad dantoodiya dad ay isku dan yihiin dad ay daris yihiin dad ay mataqaanaa soo wada halgameen dad ay saaxiib yihiin lagu dulmaro oo sida kaarayaasha loogu dulmaro oo marka la aaminsiiyo inay dadkani halis ku yihiin qayb mujtamaca ka mid in halis ku tahay mujtamaca intiisa kale nidaamka taliskuna uu dhaxeeyo oo uu kala ilaalinayo marka waxa weeyaan haddii dawladdu aanay waxba ka qaban karin anaga wax ka qabanayna cagta la marinayo ama mataqaanaa la basaasayo ama mataqaanaa la soo mataqaanaa xataa waxyaabaha la yiraahdo in takoor kale lagu sameyn karo mataqaanaa hebel baa la shaqeynayay cadawga hebel baa la shaqeynayay gumaystaha hebel baa la shaqeynayay mataqaanaa maxaan ku raahdaa cadawgeena ama dariska ayna soo weeraraya ama kii qaayinka ahaa halkan ku jiray waxyaabahaas waa waxyaabaha dictatorka ku shaqeeyo waxa kale laakiin se iyadna meesha ku jirto aan meesha ka maqnayn ama aan rabo in xaggan kaga daro sida ay kacaanku ugu dhaco ama waxyaabaha kacaanka keena ama dinamikiyaadka kacaanka sida sheekada ku jirta sheekada waxa ku bilaabmaysaa dinamikiyaadka kacaanku waxa weeyaan in xaaladda xawayaanku aad u liidato xaaladda xawayaanku aad u liidato cunto aanay jirin aad loogu shaqeeyo si xun loo karbaasho mataqaanaa aan la danaynin waxyaabo noocaas caafimaadkooda aan laga warhayn xaaladoodaasi waa xaalad mujtamac kasta oo liita haysata iga raalli ahaada mararka qaar waxaa yar jira hawada yar adag yar taagan oo mararka qaar waxa sambar baa yar qabanaya iga raalli ahaada marka mujtamac kasta oo liita oo aan dhaqaale lahayn oo aan xuquuq lahayn oo aan wada tashi lahayn oo aan dimuqraadiyad lahayn oo aan mataqaanaa dawlad rayida lahayn oo aan cid matasho lahayn oo aan la xisaabtami karin madaxdiisa sida uu ahaa ninka waxa weeyaan sida uu ninkaasi xoolaha ama xawayaanka lahaa uu ahaa xawayaanka weeyaan laakiin mushkiladdu waxa weeyaan waxa lagu kala duwan yahay mujtamacu ama taladu kama soo go'do ama kacaanku kama soo go'o bulshada oo dhan sida sheekada ka muuqata waxa loo baahan yahay cid horkaca rams qaa'id hogaamiye mataqaanaa haye waxa loo baahan yahay haddii beele cid dadka horkacda waana qofka koowaad ee sida sheekada ka muuqata ay ku bilaabmaysaba waxa nin cajuusa odaya oo cajuusa oo mataqaanaa khansiira oo da gaaray marka siduu qoraagu sheegayo khanaasiirtu 12 mid aadoodu mataqaanaa 12 jir baa ay daadoodu ku tahay mataqaanaa waa fasliga koobaad ay ku bilaabayaan waa kan odaygaasi la yiraahdo mijo oo khansiir da'weyna ayaa u bilaabaya fikradda kacaanka oo ku wacyi gelinaya inay baahan yihiin oo u sheegaya inay wax ka maqan yihiin oo u sawiraya mustaqbal dambe beritoole oo la tegayo oo wanaagsan oo midaysan oo siman oo xawayaanku u sareeyaan oo bili aadan jirin oo waxyaabahaas marka fikradda buugga soo qaatay waxa halkan wuxuu ka jeedinayaa khudbad dheer oo safaxaadkaas oo dhan ku taala khudbad dheer oo kacaanka dhanba kicinaysa waxaas oo safaxadood ku taala oo odayga mid jeedinayo oo laba shay asalkeedu yahay kow inuu xawayaanka u muujiyo dhibka ay ku jiraan wacyi gelintii aan oran karno ama in la dareemo mataqaanaa kacaankii iyo laba inuu u sawiro berida timaadada ama berida ay rabaan sida ay u eg tahay ee xawayaanku maamulayaan iyo saddex inuu u noqdo isagoo cidii waxa hagaysay hogaan mataqaanaa ku dhaca koobaad leh oo talaabada koobaad qaadaya mujtamacu inta dambe isaga ayaa mataqaanaa ayaa isaga isagay hadduu helo baraarug rasmi hadduu helo
isaga iswadaya isaga wixii ka xaysanaya odaygaasi mijo khasiirka kacaanka kiciyay taladiisa dhan waxa ku dhan tahay hadayna wax kale ku darin khudbadaasi ku dhantahay khudbadaasi haday dhamaatay isaga warkiisu uu ka dhamaaday sheekada buuga laakiin wuxuu dhaliyay sharaaradii koobaad dabshirkii koobaad fikradii koobaad taladii koobaad hadafkii koobaad dibeytoon laga sii daba qaaday fikradda labaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan in meesha ka maarmin inay hogaan fikir la helo hogaanka fikir marka waxa buuxinayay sheekada waxa buuxinay laba nin oo labaduba khansiir yihiin oo mataqaana la kala yiraahdo Napoleon oo ninka marka dambe dictator ka noqonaya iyo mataqaana ninka ay isku mucaaradka yihiin oo Sakabir la yiraahdo saashu magaciisa hadana si khaldan ugu dhawaaqin oo ahaa labadaas nin baa waxa qorayaan mabaadiida beerta xawayaanka oo toddoba ah oo fikradda beerta xawayaanka مثلا qawaaniinta beerta xawayaanka ee laga gudbi karin oo toddoba halkan ku yaalaan hadaan idin akhriyo toddobada beerta xawayaanka waxa ku bilaabmaysa kullu man yasiru ala qadabayn fa huwa adu qof kasta cid kasta oo laba ku socota waa adu qof kasta ama cid kasta oo afar lugood ku socota ama duulaysa waa saaxiibkeed xawayaanka waxa ka mamnuuca in xidhaan in labistaan xidhaan xawayaanka waxa ka mamnuuca in sariir seexdaan xawayaanka waxa ka mamnuuca in khamrada cabaan xawayaan kasta waxa ka mamnuuca in xawayaan kala dilo xawayaanadu way simeeyeen waa aragtida waa ru'yada waa taariifka waa hadafka waa yoolka waxa weeyaan halka ma taqaana loo socdo waxa weeyaan isheegida waxa weeyaan waxa yiraahdaan bayaanka shuuciga oo kale loo jiraa ama manifestada ama fikradda asaasiga taas marka xawayaanaadku dhan baa xiftiyeeya gidaar weyn baa lagu qorayaa waa ma taqaana duu beedankeeda leeyahay ma taqaana wala dusha laga xiftiyeeya wala qaadaya waxa kale oo jirta waxyaabaha ilhaamka ama ma taqaana dadka kicinaya ee loo baahan yahay in barida imanaysa ee looda ma taqaana looda loolamayo la ay yeelato hees baa jirta xawayaanaad Ingilterra la yiraahdo xawayaanada Ingiriiska oo xawayaanada dhan xiftiyeeyaan oo waaqicooga ay baritoola ku noolaanayaan u sheegaysa oo ay ku heesayaan macnaha waxaan uga jeedaa qodobkana kacaan kasta nolol kasta isbedel kasta sidoo ugu baahan yahay qof bilaabay iyo wacyi iyo ku dhac iyo hogaan waxa kale uu baahan yahay fikir iyo aragti iyo qorshe iyo ma taqaana aqoonyahan ma taqaana Umar Basha xasuusiyay bayaan xayawaani aragti waxay dhisayaan nimankaasi la yiraahdo nasca xawayaaniya xawayaanimada fikradda xawayaanimada oo ka kooban toddobada mabda ee soo sheegnay iyo ma taqaana iyo heesta xawayaanaadka Ingilterra oo qeexaysa iyaga sheegaysa waxay yihiin fikradooda madhabkooda haddaan oran karno madhabkooda siyaasiga madhabkooda ideology dhammaystiran oo waxay yihiin waxay ahaan jireen waxay noqon doonaan si wada noolaan waxaas una sheegaysa haddaan fikradaasi jirin oo maanta waxa lagu diiday bari waxa lagu ogol yahay waxa la rabo iyo waxa aan la rabin ana cadayn barida la tagaya waa macna ma laha ragii tii hore diidana marka ay sidii aan Soomaaliyeed nagu sameeynay markaynu siyaad diidanayna lagu wada kacay waxa timidee uu ragii siyaad ka soo horjeeday in markay siyaad meesha ka baxay waxay sameeyeen garan waayeen ama ay ku dhamaadeen inay noqdaan siyaadiyo kale oo yar ama yugustilaan ama ay goboleystaan ama macnaha inaanay fariin ka dambaysaa jirin maanta loo diiday bari loo rabaa baridu sida u egtahay fikradda kale aan rabayna sheega waxa weeyaan inuu ummaddu u baahan tahay shay qudsiyad la isku timaado oo qofna ma taqaana ka beeri karin macnaha wax madeeyo oo muqaddasa oo la taaban karin مثلا beerta xawayaanka waxa uu muqaddasa inaanu bashar dambe u talin beerta xawayaanka xawayaanada inaanu bashar dambe u talin marka muqaddaska waa la adeegsan karaa si khaldan iyo si toosan baa la adeegsan karaa si dadka loogu dabshido oo ay dantooda u doontaan mustaqbalkooda u dhisaana loo adeegsan karaa waxa kale oo loo adeegsan karaa sida qaybta dambe sheekada ka cadan ku horeyna dictatorku uu isticmaalayo waxa loo adeegsan karaa in hadduu beedamkeeda leeyahay dadka lagu caburiyo muqaddaska marka hore muqaddasku wuxuu ahaa inaanu xawayaanka bilaadan u talin taasa keentay in xawayaanku kacdoon sameeyaan xawayaanku bilaadka iska dul qaadaan xawayaanku la dagaalamaan bilaadanka xawayaanku waxa soo dhanbe keentay markii dambana waxa loo adeegsaday in qof kasta oo ma taqaana qof kasta oo hadduu beedamkeeda leeyahay
mataqaanaa wax sameeya ama wax khalda ama wax qalloociya inuu muqadaska u adeegsado shayga lama taabtaanka ee muqadaska inuu u adeegsado inuu ku fasiro wax kasta oo xumeeyay waxaan u sameeyay macaan waxaan basharka midna beerta heblaayo ee cadawgeena la waxaan la dhaqmay ma rabno inuu noo soo noqdo ninkii cadawgeena ahaa Jones mataqaanaa inuu tali jiray basharka ahaa waxaan hebel u dilay waxaan hebel u xiray waxaan hebel beerta ugu yeeriyay waxaan hebel mataqaanaa uga jaray biilkii ama xooluhu qaadan jiray ma aha inaan mataqaanaa wuxuu sababaysay ama waxa soo dhan waxaan u sameeyay laajli inaan basharka u ogolaan inuu soo noqdaan inoo taliyaan macnaha hadafka weyn ee laga sameeyay adeegsiga markaynu ka nimaadno laakiin waa daruuri inuu jiro macnaha wuxuu xadidayaa ayaan nahay ay cid kale tahay xad buu sameeynaya maxaa halkan xad ka dhigay qofna ka saaraya groupkeena qofna soo gelinaya groupkeena muqadaska weeyaan iyaga waxa muqadas ah marka inaanu basharo talin waxyaabaha kale meesha ku jira waxa weeyaan aniga aad ka soo jiidatay waxa jira dad baa jira mujtamaca aad u shaqeeya si qeyr caadi u shaqeeya sida shaqada ka muuqata oo xoog leh muruqooga aan la gaban oo aan waxba dib u dhigan oo aan tooda ka dareysan dadka u daneeya dadkaas waxay ku dambeeyaan juhdigooda oo dhan marka ay dhameystiraan mesela ninka dhisaya ninka siiro waxa jira aad u weyn oo washida dhan xabuubka ama cuntada lagu sameynayo intaas oo jeer dhisaya oo dumayso oo dhisaya xoogiisa oo dhan ku bixinaya si mataqaanaa hagar laana laakiin ku dambeynaya isaguna in inta retire la geliyo la fariisiyo laga iibiyo bashar laga iibiyo waliba koox mataqaanaa xoolaha qasha xayawaanka qasha laga iibiyo wixii uu dhisay ee uu awood ku bixiyay ninka talada haya uu sheegto oo xafladu inuu qabsado oo furo oo ka dhigo hadaf weyn oo la gaaray xilligiisa uu talinay halka ninkii hawsha aslan dhisay sameeyay qorsheey xoogeeda lahaa oo ka dhintay waliba la khiyaamay inta lagu yiri dhakhtar baan ku direynaa la geeyay bashar laga iibiyay deetana ku dambeeyay in la qalo inahaas waxa weeyaan fikradaha sheekada beerta xayawaanka ku jira ma ahana galigood waxaan sidaa ugu dhigayna ma aha ma rabin laba shay ina sheekada gubo oo mataqaanaa qof kasto akhriye laha aan dhacdooyinka oo dhan uga wada sheekaysa macno u yeelanaysa hadhow toole iyo inaan mataqaanaa qofka ka dulqaadno inuu akhristay isagu labadaas fikradood inoo ka baxsanayna waxaan isku dayay inaan afkaarta ama qadiyadaha ama arrimaha muhiimka ay sheekadaasi taabanaysa inaan ama intaan anigu arkay in dan inoo tahay in Soomaaliya faahno inaan mataqaanaa ay aan sheegno waxa kale oo ku daraya mas'alo muhiim ah oo loobi gaaray oo ah in siyaasaddu u baahan tahay waxa la yiraahdaa inay u baahan tahay khayaal sida ay sheekafaneed ugu baahan tahay khayaal ha sheekada 1984 ba aad uga halis badan sheekadan khadar ba ayaa mataqaanaa sheegay fikradda aad baad maasan tahay wani ka weyn tahay sheekadaasi sheekadan oo mataqaanaa way ka xisaab badan tahay laakiin sheekadan waa isku xaafad weeyaan meel bay ka wada duulayaan oo wani ka kooban tahay tani fikradda kale waxay sheekadu u baahan tahay waxaan waday inay u baahan tahay siyaasadda inay khayaal u baahan tahay in wax sawireen karto sida uu ninka khasiirka ka haystay mataqaanaa sagaal ubado yaryar oo ay oodana nafaqadeeda ku korniyana maalgelinana korniyana wax baraya si aan jiilka dambe inoogu diyaariyo wuxuu qorsheeyay inuu bari toona markuu inqilaabka sameeyo oo xeerashi beerta xayawaanka oo dhan rogayo ee uu talada qabsanayo kritis noqonayo ilaa intuu bashar isku bedelayo soo basharka u dhaqmayo saliidta seexanayo uu dharka xidhanayo uu khamrada cabayo uu basharka la saaxiibayo oo xayawaanka leynayo ilaa intuu halka gaadhay wuxuu ogaa inuu u baahan yahay awood macnaha maalinku xayawaankan yaryar sii qabsanayay uu sii cabisanayay ayuu garanayay ama uu qorsheynayay inuu talin doono ama uu rabo inuu taliyo macnaha khayaalka siyaasiga inaad wax sawireen karto inaanay maanta iyo halkan aad joogto iyo lugaha iyo maalin mataqaanaa maanta inaan arrinta ku koobnayn ay bari jirto 50 sano dambe 40 sano dambe 100 sano dambe ay tahay dariiqa aad u mareysana markaad sawireen karto
macnaha ninka siyaasiga inuu seeflabood yahay maalin ay mataqaana la canaantay oo la yiraahdo idinka dalka qoyahan u ahaa iyo idinka dalka u ahaa siyaasi iyo idinka rag ahaa waxa dalka wax ugu qaban weydeen canaantan oo la boodo bilow malaha waxaad noqon kartaa isla oo miiska iskeeno oo yiraahdo mataqaana wadaniyiin aniga halay codeeyo ama aniga halay doorto berina markuu siyaasadda gala rafta intaasoo mataqaana jabo ama sees ama mataqaana anu qorsheysan ka soo horbaxan waxa weeyaan khayaal aan bay sheegaysaa imaginationka ama sawirashada ayaa ku yaray marka siyaasaduna kama maaranta sawirasho iyo berito iyo maxaad rabtaa iyo xageed u socotaa iyo dadka inaad kala garato iyo cadow kugu noqon kara beritoole sababtu kugu noqon kara maxay tahay yaa saaxiib kula noqon kara adeegsan kartaa yaa ku noqon kara buuq oo dadka ku jihayn karta saxaafad ku noqon karta yaa ku noqon kara mataqaana ciidan oo ku shaqeyn kara yaad la saaxiibi kartaa dibadda oo ku xiran kartaa yaad la saaxiibi kartaa gudaha waxyaabahaasi ay u baahan tahay waxa kale u baahan tahay fikrad muhiim oo la yiraahdo yaa kugu lid noqon kara nidaam siyaasi oo lid lahayn ma jiro san xagga hore ku soo sheegnay nidaamka soo dictator wuxuu u baahan yahay buuc dadka kaga cabsiyo nidaam kasto siyaasiyiin wuxuu u baahan yahay cid lid ku ah oo mataqaana uu iska ilaaliyo la tartamo uu mataqaana eriyado oo uu isku muujiyo oo uu awoodiisa tuso oo macnaha mobilizing xashtu ku sameeyo laano hadaan cid ka duwanin mesela reer Soomaaliland hadaan nahay axsaabteena ama siyaasiyiinteena waxa kuma kala duwan waxaan ahayn inay laba hooyo iyo laba aabo kala duwan dhaleen nin siyaasi reer Soomaaliland ninka wax kaga duwan ma jiro ninka magaciisu waa hebel ninka magaciisu waa hebel bas wax kale oo ilaahay abuuray ku kala duwan ma jiro naqiid ma laha mesela haddaynu soo qaadano mataqaana naqiidka maxaa noqon kara in dawladaha khaliijka lacagtooda inoo wareerisay dalka ina soo galay Imaaraadka iyo Qatar oo kale waa isku naqiid oo laba dawlad yar xoolo haysta jaara reer baadiyahan jiray geel jira raba inay ismuujiyaan marka ninka qadariga wuxuu la tartamay ninka Imaaraadka wuxuu la tartamay ninka qadariga xataa haddii saaxiib yihiin wada joogan iska dahda cadow yihiin naqiidkaas wuxuu keenayaa inuu kartidaada awoodaada waxaad taqaano dhan mujtamacaaga inuu sara kiciyo oo saf geliyo oo la wada shaqeeyo marka siyaasaddu khayaalna kama maaranto naqiidna kama maaranto inaad wax sawirato iyo cid ka soo horjeeda inaad labadaaba kama maaranto inaad waaqic akhri karto oo dila mustaqbalka qorsheyn karto wax kale oo badan oo laga oran karo buugan yar inta leeg mataqaana laba fadhi ama fadhi lagu dhameyn karo waa jira mana intaana kuma dhanna intaana kuuna maaha xataa hadaynu nidhaahno oo warkiisu waxa weeyaan waa war aad u badan weeyaan qoraaga laftirkiisuna waxa weeyaan qoraa halis ah oo maaha nin yar maaha Soomaalina uu yahay oo saan ku bilownay sheekada ama video live-ka waa la turjumay sideetamaadkii dibna loo daabacay oo ina raadinay noqonaysaa meelaha lagu iibiyo ama laga heli kara ama ay taalo Soomaali ahaan sheekada aad loogu fidiyo cid Carabi akhri karaysa saddex tarjumadood baan anu garanayaa tanana intaan aanu arkay ugu fiican oo ugu kooban uguna afmacaan waxa kale oo jira tarjumada kale afaf kale aslan buug Ingiriis buu ahaa laakiin afafka kale Soomaalidu afalba maanta ku hadashaa xabashi wala heli baan malaynaa xabashidu inaga ilbaxsantaa u shaqeysataa wala heli baan malaynayaa Swedishka iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Kukuyaha iyo Sawaaxiliga iyo afafka aynu ku dhaxmilaneen naqaano dhanba hadii bidibkeeda leeyahay wala heli baan malaynayaa buugan iyo buugta la midka waa in aad loo fidiyo oo aad loo mataqaana loo wado waxaan jecelahay waqtiga dheeraad ee awgeed inaan ku soo koobo imsaan marna talo waqtiga waa markaan garaay waa 40 daqiiqo malaynaa meelaha soo marina waxaan jecelahay ku soo koobo hadii beedamkeeda leeyahay wixii isweydiina ama khalday ama qalci ama wixii fikrada ka soo dhax baxday commentiska inaan ka jawaabno ama aan isla wadaagno George Orwell iyo rag la midka aan laga daalimayo buugana waa saan sheegnay hanti inteeda leeg anaga ma casar baan loo yadaamay reer Hargeysa marka ilaa 5 daqiiqo kale oo su'aaladan ku darsano iska dhameyn karnaa ma maleynaya hadana wax muhiim ka tagay aan jirin oo cid kale ku darayso oo xasuusinayso aan sheegi karno xagan computerkan comments ka akhriya mobilku yar dheerihiin aduna sida beerta dad badan oo buug garanaya u jiraan oo halkan commentiska aad baan u arkayaa
buug aad u muhiima, buug aad u qaaliya. maxamed okay mahadsanid ninkaasi ina Faysal mudan, mahadsanid adaa mudan. xagee laga helayaa Muqdisho? reer Muqdisho isku jawaaba halkii haddii Muqdisho meel yaalla ay jirto, aan Muqdisho garan maayo laga yaqaanaa. ninka odaygeena weydiiyay halkii laga helayaa Muqdisho, waxayna weydiiyey ina Sheekh Maxamuud. haddaad war u haysaan reer Muqdisho u jawaaba, waan u sheegi karnaa haddaad comment ku qortaan. Adnaan faadxiya mudan. okay ninkaas odayga wuxuu yidhi Soomaalida imika waa beerta xawayaanka, Soomaaliya waa beerta xawayaanka. dal kastoo adduunka ka jira waa beerta xawayaanka. dal kastoo nidaam siyaasi kala talisa, ama nidaam siyaasi kala daadsan, ama nidaam siyaasi oo aan dimuqraadi ahayn, ama nidaam siyaasi oo dadkiisa laynaya, dadkiisa dhacaya, dadkiisa eryanaya uu jiro, waxa weeyaan mataqaanaa waxa weeyaan beerta xawayaanka, animal farm weeyaan. inaguna waynu ku jirnaa Somaliland, Soomaaliya, Soomaalida kale, geeska Afrika si guud, dunida saddexaad, muslimka, carabta, laatiinka badankooda, Asia haba sheegin oo yartahay adduunka. inta dimuqraadiga aad way yartahay, ama inta dimuqraadiyadda dhabti ka jirto aad way yartahay, iyo wada tashiga dhabta iyo mataqaanaa dhabta. waxaan jeclaan iska soo gabagabeeya haddana wax su-aal aanan arkayn ama wax tala ah. aad baad mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan hoosta ka xado xerta adminka inoo haysa madasha buugta oo ah mataqaanaa madalaha ugu muhiimsan ee aynu aqoonta isku weydaarsano, ayaa fikradda soo bandhigay in mataqaanaa gudoomiye Cabdiqani baa soo bandhigay, Cabdiqani Xasan, in live mataqaanaa lagu sameeyo buugta oo buug live lagu muraajaceeyo. ninka odayga Salmaan Cabdilaahi wax badan baan ka sheekeynay. imika markaa finishner aad dib u daawo fiidiyooga, waa gabagabadii aan ku jirnaa. soo dhow wax badan kuma dhaafin, mar haddii fiidiyo tahay waad ku ceshan kartaa. in cid kastoo aniga ii mahad celisay waan akhriyay mahadiina, aad baad mahadsantihiin. ana idinkaan idin mahad celinayaa. waxaan waday xerteena madashay noo wadaa, waxay nagula taliyeen in buugta online lagu muraajaceeyo. kana bilowun buu ahaa, inuu gebgab ahaan iska aragtaan, oo dee koodii ba ahayd, koodii macnaha harkii ugu horreeyay ahayd. anigana live-kii ugu horreeyay buu ahaa inta Facebook live jiray, oo mataqaanaa cabsi baa yar haysay oo yar dhididay. aad baad u mahadsantihiin. intaasaan kusoo gabagabeynayaa, mise war kalaa soo kordhay iyo suga. waxaa sidoo kale habboon in la raaciyo buuggii kale 1984. Cumar Baashi gudoomiye buugga 1984 in madasha lagu muraajaceeyo aad bay daruuri u tahay, anusaan u arkayo. weliba in kan lagu xijisiyo hadday isku xaafad yihiin, iskuna nin yihiin, iskuna qoraa yihiin, aad bay ay muhiim u tahay. ciddii 1984 muraajacayn karta hala xidhiidho xerta inoo maamusha mataqaanaa madasha buugga inoo maamusha, hala xidhiidho. Suhayb maxaa tiri fiidiyooga inoo save garee si dadkii dhaafay. haaniyo farsamo xumaa iga biqin, intaa waan aqaanaa. Suhayb waa saaxiib, intaa waa ka adaga sameynaya, waa jubey, haddii kale waa juudi khasaare. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.